dulqaad kiisu sidee buu ahaa sidee nabigeennu ummadda ugu dulqaadanayay xagga diraasadda markay noqoto tacliinta masaajidkiisiibuu nin acraabiya cawradiisii intuu la soo baxay buu ku kaadiyey saxaabadu ninkii way ku yaaceen walaakiin nebigu waa ka riday calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi dacuuhu war daaya buu yidhi war daaya daaya kaadida ha ku kala joojinina buu yidhi daaya halkuu ku kaadiyey ordo inninkuu biyo ka badan ka shuba buu nebigu yidhi ku shuba masaajidkuna bataax buu iska ahaa jagac isagii buu nebigu u yeedhay ninkii aadaabtii maskiidku u sheegay iyo kiina uu tilmaamo wuxuu ku yidhi ordoo meeshuu ku kaadiyey biyo ka badan ku shuba fa innamaa bucidtum muyasiriina walam tubcaduu mucasiriin buu nebigu yidhi inaad ummadda xaqa u dhibrisaan baa laynii keenee inaad ummadda xaqa aad ku adkaysaan markaad u gudbinaysaan adduunyada layniima keenin buu rasuulku yidhi isagiina wuu uu yeedho wuxuu sheegay masaajidku ahamiyadda uu leeyahay waa meel loo dhisay ilaahay in lagu caabudo in salaadda lagu tukado in qur-aanka lagu akhristo in diinta lagu barto markaasuu u sheeguu yidhi waa masaajid aqalkan ilaahay baa iska leh waa meel daahira weeyaan leanna markaasuu saxaabigii nebiga ammaani jiray markii dambe mucallim buu ahaa kayfiyaddaasuu nebigu ummadda wax u baraayey sala allahu calayh wasallam khudbadda mambarka isagoo khudbadaynaya nin acraabiya isdhex taagay dadku dhexdii oo yidhi rajulun ghariib baan ahay jaa'a yas'alu can diinihi laa yadri maa diinuhu nin ghariiba ayaanaho diinta islaamka ku cusub oo u yimidee diintiisa islaamka inuu wax kaa weyddiiyo khudbaddii jumcada intuu nebigu joojiyey ayuu ka dhaadhaco ninkii halkiibuu ugu tegey kursigii baa la daba qaaday nebiga calayhi salaatu wasalaam mas'alad allii mas'aladduu raba inuu nebiga weyddiiye markuu weyddiiyey uu u dhammaystiray ayuu nebigu soo noqdo khudbaddii buu nebigu dhammaystiray waa mucallim haddaad mucallim tahayna mahalkaagu waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam mahalulaclaa ciddaad ku dayanayso waa nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam haddaad qaa'id ummadeed aad tahayna u fiirsa dulqaadka nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nin reer baadiyo acraabiya ayaa nebigeennu saxaabadiisu hareeraha ka socdaan gadaal intuu kaga yimidday ayuu cimaamaddii go'i nebiga hunguriga kaga qabtay markaasuu weliba hadal adag ku yidhi xoolaha ilaahay agtaada uu dhigay adiguna ma lihid awowgaa cabdulmutalibna male nasiibuu ka yidhi intuu nebigu qoslay buu ku yidhi siiya buuha 100 halaadoo geela isagana la siiyey xaakim haddaad cid ku ummad taladeeda aad haysid ama magaalo xakum ama waddan xakum ama tuulo xakum ama tala reereed hay cidda aad ku dayanaysa waa nebi maxamed waa mahalulaclaa dhinac walba waxa uu nebigu bashariyadda u yahay mihaalkii u sarreeyey lagu dayanaayey inaad ku daba liibaanta mooyaane ku daba khasaari maysid abadan abadan limaadaa laanna ilaahay baa yidhi wain tutiicuuhu tahtaduu haddaad nebi maxamed aad raacdaan ood ku dayataan waad hanuunteen baa ilaahay yidhi tabaaraka wa tacaala saxaabadu ninka inay gacan ula tegaan bay ku hamiyeen walaakiin nebigu uu dhoolla caddeeyey intuu qoslay saxaabadii cadhadii buu ka baabbi'inayaa markaa buu nebigu isaa intuu ege buu qoslo wuxuu ku yidhi war waxa uu doona siiya buu nebigu yidhi kaxeeyo baytalmaalka geeyo oo siiya buu yidhi haniimadii gaalada laga soo qaaday buu nebigu sidaa u qaybinayey kan intaas siiya kan intaas siiya kan intaas siiya nin acraabiyo reer baadiyaa ayaa saxaabada isdhex taagoo qayliyoo yidhi wallaahi qaybtan la qaybiyey lagumana cadaalad falin ilaahay dartiina looma bixin buu yidhi hadalkaa cidda lagu leeyahay waayo waa nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam balu fiirso dulqaadka nebigeenna eeg siduu nebigu ummadda iskugu waday eeg qismaddan la qaybiyey laguma cadaalad samaynin ilaahay dartiina loogama jeedo hadalkaa ninka lagu leeyahay maaha shakhsi kale waa nebi maxamed markaa cabdulaahi bni mascuud radia allaahu canhu ayaa maqlaayey markaasuu nebiga u tegay calayhi salaatu wasalaam markaa buu nebiga u sheegay markaabaa wejigii nebiga ayaa markiiba doorsomoo isbeddilay markaasaa nebigu yidhi hadday ilaahay nebi maxamed cadaaladdu xaggooda ka iman ayaa kaloo cadaalad samayn buu nebigu yidhi soo qabtoo ninkaa xidha nebigu ma odhan isbarbar dhig madaxda zamankan ummadda taladeeda haysa waddankay dooni ha joogaan
يا قائد الأعظم قائد كي وينايا ومده هجان كي إلهي نوغو ديبي هل كي كلا جوغان بالسكو إك ساسو إك النبي صلى الله عليه وسلم مركاسو يدي إلهي النبي محمد هدي إياك عدالة وحقه ذا كيمن أياك لو عدالة سمين كرم رسولك يدي مركاب النبي يدي ولالكي موسى عليه السلام انت إكد بدن بوالا دباؤو صبري برسولك لأن القرآن كان نبي قبناي قرآنك هو أصول الدعوة أصول الدعوة القرآن كان لقى برتاع وفق مؤمنك وحا حكميني وقرآنك ويان هداد عروة قرآنك كن نقو هدين لقوقوق في قرآنك كن نقو هداد تلو مدد كاقر عن قرآنك كن نقو وين النقطة مرجعك وين هذا قرآنك لماذا؟ لأن قرآنك هو كلامك إلهي تبارك وتعالى عدالة دميستر با قرآنك كن دميستر ومحكمة عدالة دميستر مرقاب النبي يقول ولالكي موسى عليه السلام ونبي موسى انت انك بدن بأساقنا والا دبا اسك الصبري يعني قنا والصبري بك دغتا مرقا wax kale iima yaalo sabirun ba yaalo weeyaan sabir badana dulqaad badana nabigeenu alayhi salatu wasalaam dulqaad مسؤول isagoo ummad taladeeda haya ka daciifka ka qawiga كإلهي أضيعيا كعبادتي سناقس كتحي كحق إلهي إلالينيا كحق بني آدم كولي أن دميسترين كأخلاق دو وناكسن كأخلاق دي سؤال ليدتو كدين تكفي عن كدين تولي كدقن كيكا كفي عنين انت بالنبيين عليه الصلاة والسلام ومدي سوسكو وضي رئيس المنافقين عبد الله بن أبي بن الصلول إنن كيسيبا نبيين ويمد عليه الصلاة والسلام markii laga soo noqday qaswat al-ahzab markaasuu yiri yaa rasuul allah aabahay munaafiqnimadiisa cadaatay waxaan ka baqayaa aabahay nin muslima intuu dilo ninka muslimka ee saxaabiga aabahay dilay inay anigana gacan igaga siibato sida naar ku galaan ka baqayaa aabahay kurkiisa aniga soo goyno ku keeniyay igu fasax buu ka yiri aabihina waa ra'iisul munaafiqiin weeyaan مرقابو نبي يقول ما يكون فصح ما يبوكي وايو لا أورن مايو صحابي با منافق دي لا أورن مايو لغو شاكين مايه وحال لغو شاكين صحابة دي محمد با إسلين سوكور كاسك جريس هذه كان وآبها صحبة دي سواناجي بوكي لا أصم فل أنا كان شركي سيلاهي باناقا كافين دونا برسولكو كيولي مدير كدب نكا أودي من دونا رئيس المنافقين دانا مركو دينتو صحابيغي oo dhalay baa nabiga uu iman doona wiilkiisa Abdullah baa iman doona oo nabiga ku oran doona iigu tuko marka Umar ibn Khattab baa ku oran doona ya rasuulullah munaafiqa ha ku tukane daa ila salaat al-janaaza qofka lagu tukanayo waa ducayn qofka loo ducaynayo weeyaan marka uu nabigu ku yiri Umar waa ku tukaniye iska daabu kay marka uu ya rasuulullah manka munaafiqnimadiisu ay caddahay quraankuna uu fadeexadeeyay maad ku tukanaysaa مرقابو يا عمر أنا خيار با إلهي إسيو وكي يري استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم خيار با إلهي أنا إسيو وكي إلهي يقوله هذا دونت أودن بداف ضلب وأدعي ويان هذا دونت نهب أدعين هذا تكوى تضبات تنجر إلهي أدن بداف ويدي سنة لو دن بداف ما يبال ليقو يريه خيار با ليسيو خيار كا هوريه هانو تكده هان كنت كده عمر اسكا كيدابو نبيغو كيودي نبيغو وا اوغيahay ninka salaada nabi maxamed uu ku tukanayo inaysan waxba u taraynin waa ogyahay laakiin nabigu ayuu ilaalinaya wiilkiisa saxaabiga ee jaliilka ee dharaariya habeen nabiga ag taagan ee diinta islaamka difaaciga dhigiisa ula diyaaray inuu ku bixiyo kaabuu nabigu qalbigiisa dhowraya marka nabigu ummadiisa uu isku wadaa وأكنت كذا النبي عليه الصلاة والسلام هذا أنا مركز يقول يا رسول الله قبري سنة النور راعوا بالكالا يحضر هل كان نلد الجوكسو لعل الله جاي أبد الجوكا جاي إلهي ونقولنا حريصة أم بحي مركز راعي رسولكم عمر بن الخطاب النبي قاعد تهرد يقول يا رسول الله نمن كان منافقين تقبروك هتجي نكجوك هذا بعد مركز النبي قاعد عمر اسكا قاضي وحول عمره خيار بانيك إلهي السيء خيارك هيك قادنه اسكا كيداب النبي كيد عمره uu tagay qabrigeena nabigu waa kor taagay waa u duceeyay uu ka soo noqday soo noqodku soo noqda nabiga quraanka ku soo dagaya oo la leeyahay
ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله وبرسوله وماتوا وهم فاسقون باللغو يدي ما أنت وحي كدن بيسبا نبي اللغو يدي كوا منافقين تا صلاتنا كمد كان كرتد وأمد عين كرتد قبرت ودنا هسكر تاقي با نبي اللغو يدي آيات كقرآن كي صوت دقي هي وحا إسوافقي تلبحنتي عمر بن الخطاب وسوجدي مالك أنت كدن بيسبا عمر بن الخطاب مركز تلد ونبي الصحابة شورada uu tala galinayo talada Umar ibn Khattab uu dhiibta nabigu si gaar ah iskaga eegi jiray baa leeyahay limaada imam Suyuti rahimahullah kitaab taariikh al-khulafa wuxuu ku sheegay 15 tala bixin oo Umar uu ummadda u soo jeediyay tala ummadeed oo nabi Maxamed uu dhiibtay iyo quraanka iswaafaqay baa lagu yiri hijaabka kamida maqaam Ibrahim baa kamida آياتك منافقين تكور رمايا آيا كمدا 15 تلا أو عمر نبيك أسو جيديي يا قرآن سوافقي بالليل انت كدن بيسادو عمر تلا ديبتو نبيك تلا دا عمر سيجار ويشو وقوه يجري بالليل مركا نبيك عليه الصلاة والسلام سداسو نبيك مديس اسكو قوضي حقا عشرة وامحي سيدي نبيك ريريس ولدق ماي إلا شخص متكامل وها نبي محمد إلهي بيد وإنك لا على خلق عظيم جانب كليكم الصفوب حق عبادة ومثل حق أخلاق ومثل حق ماملك ومثل حق شجاعة ومثل حق نحريس ومثل حق تربية أولاد ومثل حق ماركتان الدقس النمد ومثل حق الزهد ومثل حق معاشرة الرئاسة الله ومثل مثل ومعي وتصالح